iyadoo kulamada isku soo aadeen sida kulanka Bayern Munich iyo Paris Saint-Germain iyo kulanka indhaha lagu wadahay Liverpool iyo Real Madrid waxaan eegi doonaa warbixinada laga qoray gaar ahaan kulanka Liverpool iyo Madrid ka oo caawa ciyaari doona tartanka Champions League qalka dugso gaar saaxiib laakiin oo saar saaxiibada la wadaag Ridiska ayaa wajahaysa Real Madrid caawa kulan ka tirsan koobka dhagweynaha wareegisa afraad Champions League iyadoo labada kooxood ay kamid yihiin kuwa ugu waaweyn qaaradda Yurub Madrid oo kooxda ugu guulaha badan tartanka taariikh ahaan ayaa inta badan ka sarreysay Liverpool iyagoo ka adkaaday laba final hase yeeshee Liverpool waxay ka argoosatay xilciyaareedkii hore markii laba gool eber ay ku garaaceen ciyaarka dhacda Anfield kooxda martida ee Madrid ayaa sanadkan aad u xoog badan sidii hore waxaana hogaaminaya Alonso oo hore qayb kaga ahaa Liverpool waxayna hogaaminayeen horyaalka La Liga iyagoo 5 dhibcood ka sarreeya kooxda ku soo xigtay sidoo kalena waxay haystaan rikoor nadiif ah Champions League gool ka dhan ah Marseille Krad iyo kooxda Juventus Liverpool loo soo dhibaatooday toddobaadii adag ee ku soo laabatay wadada guulaha kadib laba gool ka adkaaday Aston Villa Sabtidii gool u muuqatay mid dib u soo celisay kalsoonidii kooxda lahayd haddii caawa guuleystaan waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa inay dib u heleen qaab ciyaareedkooda koobka dhagweynaha iyo qayb ka yahay 5 saac ama 12 habeenimo caawa ee la ciyaari doona kulankan kulamadii ugu dambeeyay waa iswajaheen 5 kulan ugu dambeysay Liverpool ay hal mar kaliya guuleystay Madrid 3 kulan adkaatay waxay barbar galeen hal kulan 5 kulan ugu dambeysay Alexander Isak lama tababaran Liverpool isniintii sadartii shaki la gelinayo qayb ka noqdo kulanka Curtis Jones iyo ku soo laabto barka slot wuxuu badan tahay inuu ku soo bilaabi doono 3 daqiiqad dhexe Szoboszlai McAllister iyo Kramfbeck Andy Robertson ayaa la filayaa inuu ka ciyaaro booska bidix Conor Bradley ayaa sii xan karay midig halka Frenberg uu yahay dhaawac dhalinyarada jiran Danis Given Leon Steven Page ayaa dhaawac ku maqan mar kale dhanka Madrid Arnold ay ku soo laaban doona Anfield taa laga yaabo in lagu soo bilaabin kulanka taageerayaashu yihiin kuwa aad u careysan dhanka Liverpool sabab la xirta dhaawac qaba Carvajal Valverde ayaa laga yaabaa inuu ka ciyaaro midig Frank Mastatona ayaa dhaawac ugu maqnaan doona kulankan Camavinga ayaa booska buuxin doona isagoo la ciyaari doona Jumaini Vini iyo ku soo bilaaban doona garabka bidix halka Mbappe uu weerarka ka imin doono isagoo ku jira qaab ciyaareed wanaagsan kulanku wuxuu noqon doonaa dagaal u dhexeeya khibradda Yurub iyo Madrid iyo rabitaanka Liverpool ee soo celiyay sharafkooda Anfield waa meel mucjisooyin ka dhici kara taageerayaal badan ay isha ku hayay jawiga dheelitirka tacticada iyo Mbappe iyo Bradley iyo Robertson Liverpool iyo Madrid iyo guuleysan doona kulanka